ciidanka deegaanka ee Macawisley ayaa dilay sidoo kale nolosha ku qabtay saraakiil al-shabaab ah deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan. ciidan ku sugnaa deegaanka lagu magacaabo Hareerweyne oo hoostaga degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan waxaa la tilmaamay inay dileen sargaal shabaab ah sidoo kalena ay nolosha ku qabteen mid kale. raggan waxaa la sheegay inay ku soo dhaxdhaceen goob ay ku sugnaayeen ciidamada deegaanka waxaana ka warhelay ciidankii deegaanka kuwaas oo rasaas hubiyay raggii shabaabka ahaa. midkood ayaa la tilmaamay inuu dhintay halka kan kalena nolosha lagu qabtay. waxaana la filayaa in saacadaha soo socda lagu soo bandhigo degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan. Hareerweyne ayaa hoostaga degmada Moqokori waxaana halkaas ku sugan ciidanka deegaanka ee Macawisley. saraakiisha ciidanka deegaanka ee Macawisley iyo sidoo kale mas'uuliyiinta degmada Moqokori ayaa la filayaa inay ka hadlaan sida uu howlgalkan u dhacay.